dambal hambalyo dhaxalayga ho geesigii la dhashiyo walaalkay dhabo safarka bilowgiisa waa guuraha dhawaqa sacabka dhagu maqlaya ama farxadaadi baan dhalise dambal hambalyo dhaxalayga ho weyn afbarwaaqo iyo dhinowda ujeedka safarkeena wuxuu isugu jiraa oo kuurgalida xaaladaha deegaanadaasi iyo doonista kalsoonida shacabka iska leh kursiga ku suntan tirsiga hoob 13 wadada ku cararkeeda oo adag dhagax u daran shaaga gaariga iyo meelaha qaar oo ciid ah waa qasab mar uun inay dhagahaaga ku soo dhacaan oo raada gaariwaa hal ku dhigil soo dhaweena farxad waa hadaladii laga dheehan karay bulshada qoryoweyn oo uu horkacayo gudoomiyahooda ay hogaaminayso dictorayso khadiijo aadan cabdi khadiijo kuweyd iyo khiyaarta kale la socda waa soo dhaweynaa 14 boqolka quraanka cadadiisan ku soo dhaweynaa salaata muslim salaan inta kale oo khiyaarta kale oo maanta xafladda dadka soo dhaweeyay khiyaarta oo u soo banaan baxay rag iyo dumar caruur dhammaan nabadoonnada u horeeyaan ciidanka qaranka oo meesha jooga ay kamid yihiin dhamaantood waxaan ku salaamayaa islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh inta ka bacdi waxaan waxa weeye waan maanta soo dhawaada dictorayso khadiijo aadan cabdi khadiijo kuweyd iyo khiyaarta kale ku soo dhawaada dalkiina dadkiina وإذا سويني سوين كسر دوادا وماشى ودلتين وماشى هذا دي لكون مشرح أتهين وإذا كسر دويننا أفر يطمن كبقول كسحر فأسيب ما وجد غير له وكفر أحسن هاي ما أنتي إن جبر حل ما ندأه وهدي لا إذا كذا لك السعودة فدرال كدولة ده نقول إن النوت ما ضه ay soo sharaxdo waxa weeye suncada gabdhahana aad bay ugu wanaagsan tahay annaguna waa danaynayna maanta ka hor ma aan ahlin waxaan rajaynayaa maantay wax aan hore loo qaban oo aan xildhibaanada hore aan ka helin inaan khadiijo kuweyd ka heli doonaan rajaynaya sababtoo ay tahay gabdhuhu waxa weeye waa laf dhabarkii nolosha haddana waxa weeye way ka beerjicsiin ragga waxa weeye dadkooda way inay u dhimriyaan markasta jecel yihiin raggii ka horeeyay khadiijo kuweyd oo baa noo matalahayay hadiilada dhexe waxa weeye ma aanan hadii la ku roon yahay nooma imaanin meeshoodaas bay doorasho galeen dalkii iyo dadka u dhasheen ma ay u imaanin waxa weeye maanta rajo kala qabnaa waxaan rajaynayaa inay ka waxqabad fiicnaan doonto oo dadkii hore oo hadii la ku magaca ku yaalka ahaa oo hadii la idankeeda leeyahay baarlamanka hadii la ku magaca kali ku magac u jooga ahaa inay ka fiicnaan doonto khadiijo qaba marka insha Allah ku soo dhawaada waxqabad baan maanta hadii la ku roon yahay malaysanaynaa isbedel baan malaysanaynaa insha Allah dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow waxaad u qaban karid insha Allah ilaahay kugu garab galo waxaan rajaynaynaa inaad ku soo bixi doonto fariyo tobankiyo boqolkan kuna soo dhaweynayna kuna salaamayna salaanka bacdigeed waa mahadsan yihiin
waxaa la yidhi dadku walaal wuxuu ku yahay maalintii ay joogto in wax la isku qabto ama la isku hiiliyo inuu isku soo baxo khadiijo marka qabiilkeed bay u timid dalkii iyo dadkii ay ku dhalan ay u timid hadday u timid hadda doqonnimo mooye inaan soo dhowayno oo aan soo dhowaysanno oo la hadalno waajib bay nagu tahay waana waxay noo soo aaddoon noogu timid waxa weeye marka waa ku mahadsan yihiin kuma faansana dalka waad og tihiinoo maanta nin walba meesha degaankiisa iyo dadkiisa ama wax u helo ama wax u waadayo u hilgamaya dad waa jira macalli cabditaabtado inta saas oo kale annaga himad aan u qabnay soo bixi waaday soo bixi waada waa jira khadiijo marka waxaan ka malaysanaynaa dadkaas oo kale inaysan noqon waxaana la yidhi safarku muxuu ku maqan yahay lama yidhaha muxuu keenaa la yidhaah hadday raagsato wax keento hadda waa safarkii maqnaadoo la yidhi muxuu ku maqan yahay lama yidhaahdee muxuu keenaa la yidhaah khadiijo marka waxay noo soo aaday dadkeedii iyo dalkeedii waxay ku nool yihiin iyo waxay yihiin inay soo aragto haddana inay in la soo baxo oo garab la siiyo waayo maxaa jira dawladnimay u shaxaysaa dawladnimada qofaan dad haysan ma helo waxa weeye marka khadiijo waxaan leenahay mar waa duco ilaahay arrinta ay wadato ilaahay ha ku guuleey marka labaad hadda waxaa la yidhi nin walaalkii yidhi ii hiil ma galo walaalow ii hiil ninku hadduu yidhahda hiil ma galo khadiijo marka waxa weeye maanta hiil ay la haraysaa ma jidho wax u soo bixi waada maahane hiil ay la haraysaa ma jidho annaguna waa sheegno hadda waxa weeye dadkii noo imaan jirin adugu waa noo imaan jirin nugumana soo noqon jirin waxaan ka rajaynaynaa marka khadiijo dadkii hore inay ka fiicnaato ilaahayna uga baryaynaa ayaduna hadda waxay u soo kacday dalkeeda iyo dadkeeda wixii ay hesho in wax la qaybsato waxaan leenahay marka arrintaasna allaha ku guuleeyo khadiijana haddeed qof wax loo sheego waa ka weyntahay waxaan maantay halkan ku soo dhoweynay musharax doctorayso khadiijo aadan cabdi oo nooga soo aaday meel dheer khadiijo waa qof xildhibaan hore ahaa shaqadiisa la yaqaano firfircoon bulshada in badan u soo shaqaysay haddana u socota inay matasho bulshadii ay u shaqay jidhay weliba ay ku matasho kursigooda golaha shacabka ee dawladda federaalka waxaan leenahay allah kugu guuleeyo khadiijo hadday ku guulaysato kursigan maxay qabanaysaa su'aalaa la iska rabaa ballanka ugu horeeya qoryo weynaa leh ballanka ugu horeeya qoryo weynaa leh oo qoryo weyne maxaa u qabanahaya qoryo weyne meeshay rabtaa igala dhacdo waa haddaan ku guulaysto ilaahay idinkiisana waxaan rajaynaya inaan ku guulaysto ceel biyoodkii kow horta qora haddeer qorta wixiina noodgaraysta wixiina ceel biyood kow oo riigoo halkaa laga taago meel macaan laga qodo isbitaal oo helti booskiisa wata ama m c h kiisa iyo hal xaboo baabuura ah ambalas aniga intaas maanta iga qora waa adduuna biyihii loo bagaahay aniga ambalas iyo ceel iyo m c h ki iyo isbitaalkiisa khalabaysan iyo wixii aan ku soo jiidi karno inay hay'ado xataa wax laydin soo jiido aniga laftigayga shaqo idinkaga bilaabay daaris waa professional ah haweenka iyo carruurta aniga waay marka ilaahay waxaan ka rajaynaa gabar dambe isku furantayna waddankan lagu arag oo fistale wax la yidhaha uu ku dhaco ilaahay saasaan ka rajaynayaa ambalaas haddii anigu aan maqan oo shaqo qaran jiro ambalaas halkaan inti looga qaado aan soo istaajinayaa daqiiqad lagu geeyo gaalkacyo oon lacag ahayn allaha noo saqiro wixii alla saqiraa saqiran tolkayow meelaha kaloo tegi doonana ballanqaad kalaa jira ducadiinna hayla jirta bes muhiimaddu waa intaas tolkay waa mahadsantihiin faan xagga dhig intaas haddaan qaban waayo 2 sano ay igu tijaabinaysaan shirka midda kale kursiga u orday loo bagaa iskale hebelow ree hebel iyo maya idinkaa iskale kursiga kalena waxaan rabaa inuu sidaan oo kale dadka u mideeyo oo kuwa dhinooda joogana u tago
kuwa maaragtay jooga ii sheegeen afar waaqana u tago kuwa qoryo weynana saasaa raba dadku in la mideeya raba tolka la iska warqabo baahida aad baan idin salaamayaa gabdhaha aad bay u salaamayeen culummada iyo gudoomiyuhu aad bay u salaamayeen ducadiina hayla jirto loo bada waxa lagu yaqin duco ilaahay idinkiisa ducadiina Allah isiiyo walaalihii jira ardadii jirta quraanka Allah idin saqro wax barta degmada Afbarwaaqo oo dhankooda soo dhaweyn meeqaam sare leh u sameeyay musharax xildhibaanka Tooreysa Khadiija Kuwait ayaa dhankooda u mahad celiyay uguna duceeyay xilkan xilkan ilaahay waa bixiya waxaan ugu duceynaynaa qofkii xilkaas hela oo ku guuleysta ilaahay inuu ka dhigo waayo qofku ugu horeeyo oo noo yimaada oo naga codsado weey xildhibaanada haddaan aan ku jiibsado xildhibaanadu marka codka raadinayeen bay yimaadeen marka xilka helaan lama arko xitaa haddii la raadiyo checkpoint kasta oo midin laguma ogoleen oo tagto marka waxaan leeyahay Khadiija Kuwait Afbarwaaqo haddaa xilka heshin insha Allah waa iloobin waa inaan ugu soo laabataa iyo wixii dambe oo yimaadeen qof xildoona oo hadda waqtiyaasha hadda dhow yimaada kow adiga ah waxaan leenahay lambar kow Khadiija adiga oo mahadsan 14% oo walaashina oo deegaanka hadda u dhashay wadankaaga si hore ugu sheeg ku soo dhawow xilka aad doonaysi oo deegaankaaga aad inta u soo martay oo dhul badan ku haray oo kharash badan ka soo galay hadee inaad helaysi insha Allah laabta ku qabaan ku leenahay annaguna waan ku codaynayna wax bixintana Ilaahay baa iskala magal degmada Afbarwaaqo tuulada budbud kuwan kale oo maartay qoryo weyne iyo dhinowda gaalkacyo boqoloo inta u dhaxaysan xildhibaan ah may dhageysanaysan hadda waxaan rajaynayaa hadday xaq caafimaad tahay hadday ceel biyooda macaan tahay hadday helti boosyada la qalabeeyo iyo maartay ambalaasyo tahay waxa la iska rabaa wax qabada la iska rabaa tabar la isku nici maayo wixii tabari tahay la isku nici maayo haddaan tabar helo meel walba inaan ka soo muuqdaa bilis ayada ka faan jecel bilisayada ka faan jecel dhinowdana inaan tagaan rabaa inta kalena waa soo maray inta ii dhimanna waa sii mari doonaa intaas ducaan raadinaya xoolay idinka man raba geel ii soo gad idima li anigu haddaan xildhibaan noqdo oo ilaahay igu guuleeyo sida saaka la ii soo galbiya la ii soo anoo wixii sida halka imaanay ilaahay idinkiisa maxay igu qaadanaysaa 2 maalmood kaliya igu qaadanaysaa day dadku markii ay kursiga helaan waa carana xamar ay u ordaan anigu inta dib aan u soo laabana ilaahay idinkiisa waxaan rabaa inaan iraado ducadiina waa la aqbalay tolkayo waa ii soo duceynaysaa xilli galaba ayaynu gaarnay deegaanka Dhinowda isla markaasna bulshada uma aysan kala harin soo dhaweynta musharax xildhibaan Tooreysa Khadiija Kuwait Khadiija aadan cabdi oo in badan xil soo qabatay maantana aysan ahayn qof la tijaabinayo hadda la hore ugu soo guuleysatay ilaahay idankiisa imaantinka ay noo timid hadda aad baan u hambalyeynayna oo aan ugu faraxsannahay oo aan u soo dhaweynaynaa si xilkeeda gudata dadkeedana waa anfacda allaha ka dhigo ilaahayna ku guuleeyo annagana hadda la ku roon yahay kuwii hadda la ku roon yahay ma taqaanay yani faa'iido iska hela Allah naga yeelo ma sha Allah kaana ilaahay idankiisa ma sha Allah kaana weeye ilaahay baa galabta isku kaaya keenay baan kulmiyay waa ma taqaanaa yani ilaa
arrinteedu musharaxu ilaa haddii alla kuu roon yahay federaal ilaa mataqaanaa heer degmo ayay noogu timid oo ka socotaa marka maasha allah kaana ahay ilaahay waa kuu guuleeyey ha kuu guuleeyo annaguna haddii alla kuudmahayo aadankiisa kuwii allaha naga dhigo haddii alla kuudmahayo haddii alla kuudmahayo dadkooda iyo intaba mataqaanaa yacni waa anfaca walaashaya musharaxiintii bay galabta noogu soo hormartay ayadoo waxaan leenahay gurigaagi baa joogtaa walaal soo dhowow marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba musharaxiintii baa u soo hormartay wax allaala wixii dhinowda qabto oo haddii ilaahay ku ay tabanaysana waxaan leenahay musharaxiinta mar hadday ku soo bilaabatay waa nagala qayb qaadanaysaa adaana noogu soo hormaray marka ugu horraysa waxaan leenahay soo dhowow walaashaya gurigaagi baa joogtaa ku soo dhowow gurigaagi baan kugu soo dhowaynaynaa waa la soo dhowaynaya waxaa la yidhahdaa qofkii aan guryaha iyo dadka iyo deegaanka aan ahayn marka adigu gurigaagii baa joogtaa galabtay waxaan leenahay mar labaad iyo marka koowaad iyo marka saddexaadba soo dhowow waxaan soo dhowaynaynaa xildhibaanadda jidka dheer noo soo madhay kismaayo waa maqli jirnay managaa tagnayba aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waana ay mahadsan tahay annagoo walaalnimo iyo tulnimo intaba ugu soo dhowaynaynaa iyo waxtarku qofku leeyahay miisaanka intuu mudan yahay intaba sidaa darteed waa hooyo xildhibaana ilaahay hiba siiyey dadkeennay u horraysay weligaanna hoggaami annaguna walaalaheed ay u timid baan nahay waana ku garab taagannahay meel kastoo ay joogto xibintaa xildhibaannimada waa ku garab taagannahay haddaan raggu xagaldaacayn oo jillaafo u dhigin annaga haweenay waa ku garab taagannahay ahey intaa ku soo dhowaada khadiijo dhammaan waxaan salaamayaa wafdiga ballaaran ee inoo yimid oo ay hogaaminayso musharaxa xildhibaan khadiijo aadan cabdi waxaan kaloo aan salaamaynaa dadweynaha reer dhalowda ee isugu yimid maanta halkan salaan ka bacdi waxaan u hambalyaynaynaa in ay tahay maamadu qofkii ugu horreeyey ee doorasho u tartamaya dhinowda yimaada waxaan leenahay xildhibaan khadiijo waxaana ku soo dhowaynaynaa aad iyo aad waxaan kaloo aan leenahay ciddii ku jirta tartankan ee aan dhinowda soo booqan ama aan macnaha waxa weeyaan baahida reer dhinowda aragti dheer u yeelan in aysan reer dhinowda aysan cid u ahayn kuna xisaabtamayn waxaan marka leeyahay maama khadiijo waxaanu kuu soo dhowaynaynaa 100% sida aad naga aragto yar iyo weyn rag iyo dumar culimadayadii dhammaan waxaanu maanta halkaan u taagnayn soo dhowayntaada waxaan markaa aan ku leenahay dhinowda waxaa ka jira horna waad u maqli jirtay haatana waa aragtaa waxaan soo dhowaynaynaa musharaxad maama khadiijo oo runtii dadkeeda iyo dalkeeda horena wax u tartay haddana soo booqatay oo dadkeeda u timid baan galabta meeshaan ku soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay noqoto awal qofa waxay ahayd aan howlkarnimadeeda naqan oo dadka iyo dalka iyo diintaba dadka iyo dalka wax u qabatay waxaan rajaynaynaa inay ku guulaysato ilaahayna uu ku guuleeyo waxaan aad u salaamayaa dadka ku nool meesha la yiraahdo dhinowda ee culimadu hogaaminayaan iyo maaragtay gudoomiyaasha iyo maamulka iyo haweenka iyo caruurta macal kuwa baadiyaha jooga aad baan u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safarkeena ka soo bilownay magaalada gaalkacyo waxaan ku soo marnay qoryo weyne waxaan ku soo dhufanay haddana afar waaqo boqolooc halkaana ku nimid intaasna waxaa joogay dadka deegaanka si qurux badan bay ii soo dhaweeyeen ilaahay ha sharfo waan idin salaamayaa dhammaantiin meel walba ay joogaan dadkani waa dad waxqabad u baahan dad war u baahan iyo istustus iyo kilib ma ahan waxaan rajaynaynaa in macallimiintuna jaaliga ka saaraan ilaahay idankiisa aniguna aan foundation aan ku soo celiyo maaragtay investment iyo maaragtay dadkan iyo dalkan u baahan yihiin meesha waa meel magaalada xeebeed leh
waa meel maartay khayraad badan ku jiro lama soo baxaan waa indhahay ka fiirsadaan waxaan rajaynaynaa ilaahay iidankiisa inay tababarro iyo training helaan haddaan kursigaas u guulaysto ceel hadday tahay iyo isbitaal hadday tahay iyo haddii ilaahay kugu roon yahay aqal ii sheeg shirarka lagu qabto marti waxaasoo dhan anaa andal qaaday waa ballan ilaahay baana guushahaya haddaan ku guulaysano waxaan rajaynayaa kursigan in halkaana ku soo celiyo halkaanu ka dhashay halkaana laga leeyahay waa meel aan weligeed kursi arag wax watana weligeed imaan xaqiina allah idin siiyo 20 iyo inta dawladda carta ilaa hadda kursigaas ma indhaas ma saarinina ma ada arkinina waxaan rajaynayaa inaad bal maanta lagu shaqo galo oo dadka wax loogu qabto deegaankii baadiyaha gabdhaha isku go'ahayo fistaluhu ku dhacayo magaalada fiican aan haysan iyo meelay ku dhalaan waxaan rajaynayaa health boss fiican helaan dhaqaatiir ba weylash waana dhaqaatiir waana macallimiin iskoolkina hadda xarigan ka jaraynaa kuwii jahliga ka saara Allah ka dhigo tolkayo waxa weeye musharax baan ahay xilkaasaan idinka soo doontay inaa iguna ducaysaan iguna garab gashaan ergana noo noqotaan intaasaan idinkugu nimid gabdhahana aad baan u salaamayaa ilaahay idankiisa wadanku waa kala dheer yahay gaari waa meesha liya boorkayga ku qorantaa waxa wax ka qabanayaa baa iri oo aniga ma directionkaygu yahay meelaha gaari waaga waa tan oo kale yaa soo gaara qof walba meeshaas uu dhuuso mareeb iyo cadaadu ka laabta 4 sano ka bacdi buu haddana yimaada may sirjidi taas ma soconayso waxaan rajaynaynaa inay halka ariga la israaco oo ceesha la isla qoto intaasaan rajaynayaa ilaahay idankiisa waana maasantiin ka soo booqashada iyo dadaalka ay sameysay Dictoressa Khadiija Kuwait u tartamayaasha xilligan xusul duubka ugu jira kuraasta baarlamaanka ee taalgaalkacyo waxaa horyaal wax ka qabashada baabuur ka shaqeysa xaaladaha degdega ee loo yaqaan ambulance hawlgelinta xarumaha caafimaadka ka baaraandega cilal biyood riig ah xoojinta xarumaha waxbarashada yagleelida saldhig booliis iyo guriga martida sidoo kale waxaa cid walba mas'uuliyad ka saaran in meesha laga saaro dhawaqa naxdinta leh ee hooyooyinka umulaya oo gaalkacyo loola soo cararo markii ay jirto xaalad halis ah